Jude Bellingham ayaa markaas loo magacaabay ciyaaryahanka markaas ugu fiicnaa Bundesliga xil ciyaareedkan 2022-2023 kadib olole markaas u muuqday oo lagu xusuusan karo xidiga qadka dhexe ee qaab ciyaareedka markaas si wanaagsan ku soo bandhigay garoonka Signal Iduna Park. Nicolas Jude Bellingham waxaa loo doortay markaas ciyaaryahanka ugu fiicnaa ee horyaalkan Bundesliga 2022-2023. Xidigan markaas Bellingham ayaa markaas laga yaabaa inuusan markaa ku dhamaanin sidii markaas uu doonayay xil ciyaareedkan, laakiin wuxuu ku rayaaqay ay lagu leeyahay sanad markaas cajiib ah. Qaab ciyaareedkiisa ay ahaa yaa lagu leeyahay midka markaas u qalma in markaas abaalmarintan farta laga saaro. Waxa ay noqotay ilaa sababta loogu doortay ciyaaryahankan ugu fiican in qaab ciyaareedkiisa markaas xil ciyaareedkan uu soo bandhigay weliba oo indhaha markaas uu istusay kooxaha waaweyn markaas amaba ay ka dhigan karaan ugu horeeya, iyadoona kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ugu horeysay lagu leeyahay kooxaha markaa doondoonaya. Xil ciyaareedka markaas Dortmund wuxuu markaa ku dhamaaday si xun, iyadoo markaas u baahneed kaliya guul inay ka gaarto kooxda Mainz, balse ma aysan dhicin oo kooxdu waa tii baraajo gashay. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waa tii 2-1 markaas ku garaacday kooxda kubadda cagta FC Cologne, halka Dortmund ay markaas ogolaatay fursad markaas cajiib ah amaba cajiib ahayd oo kaga sii kartay markii la eego gacantoodana markaas ay ku hanan kareen horyaalka wadankaasi ee Jarmalka ee Bundesliga. Maqnaanshaha Bellingham markaas kulamada markaas ugu muhiimsanaa ee Germany markaas laga ciyaarayay xil ciyaareedkan sidaas uma badnayn ee lagu leeyahay. Xidiga markaas xulka qaranka Ingiriiska ayaa markaa laga yaabaa inuu weli markaas xiiseynayo ka ciyaarista markii la eego horyaalka ee wadanka Ingiriiska ee Premier League, kooxaha markaas ugu waaweyn ay yihiin kuwa markaas ugu horeeya. Haddaba Bellingham waxaa lagu leeyahay waa xirfadle markaas cajiib ah noqon kara lagu leeyahay qadka dhexe ee qabsan kara dhawaanahan la eego caalamka, maadaama uu ka mid yahay kuwa hibada u leh ayaa lagu leeyahay in qadka dhexe. Marka Bellingham waa mid ka mid ah xirfad-yaqaanada amaba xirfadda kuwa u leh inay ciyaaraan kubadda cagta ayaa lagu leeyahay. Bellingham xaaladiisu hadda aad ay markaas u soo roonaanaysaa maadaama uu niyad uu ka qaaday kulankii markaas ugu dambeeyay. Aad ayaa loo arkay isagoo markaas oo yanaya ama ilmeynaya xidigan la yiraahdo Bellingham.